asalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaaja wararka ugu dambeeya dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya abiy axmed oo guusha ugu ballaarneyd ka gaaray dagaal siyaasadeedkii kala dhexeeyey xasan sheekh maxamuud socdaalka uu ku tegayo maanta magaalada addis ababa iyo wararka ugu dambeeya arrimaha ay ka wada hadlayaan labada hogaamiye ee dalalka dariska ee xorguftu ka dhex qarxday. dowladda turkigu baadigoobkii ugu badnaa ayay ku haysaa xilligan abu cubeyda iyo sidoo kale xubno kale oo mahadkarata ayuu ka mid yahay. waxaan idiin soo gudbin doonaa tillaabooyinka degdeg ah ee ay qaadayaan sirdoonka turkigu ma ka awood badnaan doonaan kuwa mareykanka. waxaan idiin soo gudbin doonaa isbarbardhig aan ku sameyn doona labada sirdoon ee duqeymaha ka fuliya soomaaliya. ruuto waxa uu shaaciyey in kiiska badda ee horey maxkamaddu go-aanka uga gaartay islamarkaana kala dhexeeya soomaaliya wadahadal uu doonayo in uu markan la galo iyo gorgortan kala dhexeyn doona xasan sheekh maxamuud. xuutiyiintu waxay u diyaargaroobayaan soo dhoweynta maleeshiyaadka ugu badnaa iyo horjoogayaal sarsare oo doonaya inay ka gudbaan xuduudaha ay wadaagaan soomaaliya iyo sidoo kale xagga badda ee yemen. midowda africa atmis waxay la kulmaysaa fadeexadii ugu ballaarneyd shacabka soomaaliyeedna waxay qarka u saaran yihiin in ay kacdoon sameeyaan islamarkaana ay dhagxaan iyo agabyo kale ay ku weerareen xeryaha ciidamada fadhiidka noqday. waxaa ka jira in kenya ay guud ahaanba xirtay dhaqdhaqaaqii xuduuda dhulka ee soomaaliya kala dhexaysay. inta daawateen waa qodobada wararkeena daawada kusoo dhawo wararkaasi wararka oo dhammaystiran subscribe-na saari janalka sidoo kale follow gare oo share gare page-kana dhabaalka wararka waana ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka wararkeena. ana ku bilowna abiy axmed ayaa u muuqda in uu guul ballaaran ka gaaray dagaal siyaasadeedkii kala dhexeeyey xasan sheekh maxamuud kaasoo soo bilowday 15 May ee sanadkan wixii ka dambeeyey markii doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ka dhacday magaalada Muqdisho. abiy ayaa waxa uu markaan qaadaya tillaabooyin ballaaran kadib markii ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud cadaadis saareen midowda afrika goboleedka IGAD mareykanka oo ay dabada ka riixayaan dowlado kale oo carabeed oo Itoobiya xiriir la leh Qatar iyo dalal kale kuwaasoo ku riixaya inuu si degdeg ah u aqbalo xasan sheekh wada hadallo labada dowladood. abiy ayaa hore u diiday in madaxda dowladda federaalku ay soo gaaraan magaalada addis ababa. sidoo kale maalin dhexe ayuu ku gacan sayray in uu magaalada addis ababa ka dego ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre isagoo tilmaamay in taasi ay tahay mid muujinaysa in hoos loo dhigay maqaamka Itoobiya. waxa uu sheegay in ay la hadlayaan oo kaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda. Itoobiya ayaa waday galaangalka ugu ballaarnaa kuna socda Soomaaliya kaas oo saameyn ku yeeshay siyaasadda wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo weliba wada hadallada labada dhinac ay dhowaan ka furmeen magaalada New York ee dalka Mareykanka kadib markii kulan ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya xogayaha golaha fulinta goboleedka IGAD ee warkeena gabayaho iyo xubno kale oo cadaadis saaray xasan sheekh iyo dowladiisa. warkaanu helayna ayaa tilmaamaya in labada dhinac ay ka wada hadli doonaan qadiyadda webiga Niil, aragtida dowladda federaalka ee ku wajahan in ay mowqifkeeda cadeyso iyo tillaabooyinka ay tahay in lagu xaliyo arrintaasi. dowladda federaalka waxay doonaysaa in ay Itoobiya si hoose ugu xaqiijiso inaysan qayb ka ahayn dhaqdhaqaaqyada looga soo horjeedo biyo xireenka webiga Niil, balse ay jirto saaxiibtinimo gaar ah oo kala dhexeysa dowladaha carabeed ee kala ah Masar, Suudaan islamarkaana ku wajahan sidii loogu qaadi lahaa saaxiibtinimada labada dhinac. madaxweyne xasan sheekh ayaa miiska saaraya in dhexdhexaad ay ka tahay dowladiisu islamarkaana aynan qusaynin qadiyadda webiga Niil, arrintaas oo ah midda kaliya ee Itoobiya ay xiriirkii Soomaaliya dib ugu soo celin karto. sirdoonka turkiga ayaa baadigoobka ugu dambeeyey waxa ay ku hayaan abu cubeyda mahadkarata iyo xubno kale kuwaasoo la doonayo in lagu beegsado howlgallo qorsheysan oo ay fuliyaan ciidamada ammaanka Soomaaliya iyo sidoo kale diyaaradaha Turkiga. tillaabooyinka ugu dambeeya ee ay qaadayso xukuumadda Ankara ayaa ah in labadii maalin ee ugu dambeysay ay hirgelisay unidyo sirdoon kuwaasoo si degdeg ah uga howlgalaya deegaano kala duwan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. gobolka Jubbada Dhexe oo ku sugan yahay abu cubeyda iyo sidoo kale mahadkarata oo ka mid ah jimhadaha wareega islamarkaana hadda fadhigiisu uu yahay aaga gobolka Jubbada Dhexe ayaa la xaqiijiyay inay yihiin shakhsiyaadka la kulmaya baadigoobka ugu ballaaran ee ay sameynayaan hay'adaha sirdoonka qaranka iyo sidoo kale kuwa
saaxiibadooda ee Turkiga. Diyaaradda droniska ee loo yaqaana TB2 ayaa hawada Soomaaliya soo gashay, waxaana sirdoonka Turkigu ay ku hanjabeen in saacado kooban ay ku wada qareejinayaan guud ahaanba saraakiisha loo arko inay horjoogayaal ay u yihiin ururkan hubeysan ee muddada la dagaalamayay dowladda federaalka. Waxaana tillaabadaas ay tilmaantay inay tahay mid lagu garab istaagayo oo lagu caawinayo hay-adaha sirdoonka qaranka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan soo afjaridda argagixisada iyo sidoo kale xoojinta tillaabooyinka nabadgelyada qaranka lagu xaqiijinayo. Si walbaba ha ahaatee, waxaa Mareykanku uu horay dhowr jeer lacago u duldhigay saraakiishan hadda Turkigu baadi goobayo, balse kuma ay guuleysan in ay khaarijiyaan. Waxaase la aaminsan yahay in saraakiisha sirdoonka Mareykanku aynan daacad ka ahayn inay xubnahaasi beegsadaan, balse ay doonayaan oo kaliya in Mareykanku uu sii daba dheereeyo mashruucan Soomaaliya ka socda ee la dagaalanka argagixisada, iyadoo weliba xubnaha sare aan la beegsanayn balse la qareejinayo kuwa hoose ee daacadda u ah kuwa sare. Ruto ayaa muujiyey inuu wada hadal uu la gelayo Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo ku aadan kiiska badda ee muddada dhex yaalay labada dowladood, iyadoo hogaamiyaasha labada dal ay diiradda saarayaan sidii ay xal waara ugu heli lahaayeen mushkiladaha ka dhashay muranka badda islamarkaana u dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya. Xogaha la helaya ayaa muujinaya in madaxweyne William Ruto uu hirgelinayo wada hadallo toos ah oo la galo dowladda federaalka. Mar uu la hadlayay warbaahinta ayuuna xaqiijiyay in Soomaaliya ay yeelatay madaxweyne ay Kenya fahmayso, isla markaana ay rajo weyn ka qabaan in wada hadal iyo wada xaajood lagu dhameeyo wixii kala aragti duwanaan diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed iyo xuduudeed ee ka dhexeeya labada dowladood. William ayaa u muuqda in uu yahay mid ku kalsoon in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka ogolaanayo gorgortan iyo wada hadallo toos ah oo ay galaan labada dowladood, islamarkaana lagu soo afjarayo guud ahaan wixii khilaaf oo ka dhaceeyay. Tallaabada ugu dambeysa ee uu qaadaya ayaa ah inuu kaga dhabeeyo in labada dowladood ay wada xaajood toos ah ay ku xaliyaan arrinta, maadaama Kenya ay u aragto in ceel shidaal oo badan ay ku jirto aagga Soomaaliya loo xugmiyey biyaha badweynta Hindiya, islamarkaana ay siisay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Waxa uu sidoo kale u muuqdaa inuunan aqoonsanayn go-aanka maxkamadda. Waxay Kenya walwal ka qabtay inuu dib u soo laabto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse Xasan Sheekh Maxamuud marka uu soo laabtay islamarkaana uu hogaanka qabtay ayay gorgortan la gashay durbaba, iyada oo saxiixday heshiisyada qaadka iyo kuwo kale oo aan dani ugu jirin Soomaaliya. Jabhadda Xuutiyiinta ayaa u diyaar garoobaya soo dhaweynta janibta ugu badnayd islamarkaana ka imanaya xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Yemen ee dhinaca badda. Xogo la helaya ayaa tilmaamaya in doonyaha dheereeya ay ka sharaacanayaan qaybo ka mid ah xeebaha badweynta Hindiya iyo Badda Cas, kuwaasoo u jahaysanaya dhinaca dalka Yemen si ay kaga gudbaan aagagaas, islamarkaana ay saraakiisha iyo xubnaha si ay u helaan goobaha ay gabaad ka dhigtaan. Iluhu waxay xaqiijinayeen in Xuutiyiinta oo taageerada hub ee ay ka hesho xukuumadda Tehran inta badan siisa kooxaha ka dagaalama Soomaaliya, in markaana ay si toos u qabanqaabinayso inay soo dhaweyn u sameyso saraakiil badan oo loo arko inay khatar ku yihiin guud ahaan nabadgelyada dunida iyo tan gobolka Geeska Afrika. Tallaabooyinka isdaba joogga ee saacadihii lasoo dhaafay la qaaday ayaa kuwa muujinaya inay jiraan isku xirnaansho guud oo u dhexeeya labada kooxood, iyadoo weliba la ogyahay in ay jireen agabyo kala duwan oo shidaal, raashin iyo daawooyin iyo rasaas iskugu jira oo ay kooxaha Soomaaliya ka dagaalamaya qaarkood ay kala degeen xeebaha badweynta Hindiya ee aagga magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug, halkaas oo la helay xog muujinaysa in daabulaadda saanada ciidanku ay si toos ah kaga socoto. Dowladda federaalka ayaa la tacaalaysa sidii ay arrinta kaga hortagi lahayd, islamarkaana ay usoo gaabin lahayd cimriga cid walba oo gacan ka geysanaysa dhaqdhaqaaqyada iyo jiritaanka kooxahaasi. Dhinaca kale, Midowga Afrika ATMIS ayaa la kulmay fadeexad weyn kadib markii ciidamadiisu ay ku nagaadeen saldhigyada, islamarkaana ay ku guuldareysteen in ay dib uga howlgalaan Soomaaliya, islamarkaana ay ka barbar dagaalamaan ciidanka SNA ee Soomaaliya, iyadoo weliba ay kayd ku yihiin ciidamadaas oo gaaraya 20,000 oo askari xeryo kala duwan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Shacabka magaalo kala duwan oo ka tirsan dalka ayaa qorsheynaya
in ay ku weeraraan ciidamada amisom xeryahooda dhagxaan iyo sidoo kale dhalooyin laga soo buuxiyey gaas, islamarkaana la doonayo in si toosa loo tuso in ATMIS aynan u imaanin inay xeryaha fariisin ka samaysato, balse loo yimi ama ay u joogto inay ka qayb qaadato gaarista nabadda iyo yoolka fog. Shacabku meelaha ay qorsheynayaan inay ciidanka ATMIS ay weeraraan waxaa ka mid ah deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug sida magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale meelo ka mid ah gobolka Hiiraan, gobolada Bay, Bakool iyo sidoo kale aagga gobolka Gedo fariisimada ciidanka Kenya iyo kuwa Itoobiya. Ugu dambeyntiina dowladda Kenya ayaa xirtay xuduudii ay la wadaagtay Soomaaliya, islamarkaana ay la wadaagtay Soomaaliya iyadoo weliba istiraatiijiyadu ay tahay in ay ka hortagto isku dayada kooxo doonaya inay ka baxsadaan xuduudda Soomaaliya, kuwaasoo u gudbaya dhinaca Kenya, islamarkaana doonaya in ay gabaad ka dhigtaan dhulka hawdka ah ee waqooyi bari ee wadanka Kenya. Waxaana militariga oo wata diyaarado dagaal iyo taangiyo ay fariisimo ka samaysteen deegaano kala duwan oo ka tirsan xuduud beeneedka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya, islamarkaana ay doonayaan in ay ka howlgalaan xuduudaha Soomaaliya, iyadoo weliba dadka ay gacanta ku dhigaan ay la kulmi karaan khatar amni. Waxaana lagu wargeliyay dadka inaynan ka gudbi karin soodinta sababo la xiriira khatarta amni ee ay leeyihiin ciidamada Kenya. daawada intaas waxaa ku dhan warka oo kaaga imaanaya dhambaalka wararka. Haddii daawada aad nagu cusubtahay subscribe saar channelka, sidoo kale farogale oo share garee page-kana dhambaalka wararka. Waana ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka wararkeena. Nabadgelyo.